munaasabadan oo ahayd mid lagu xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ayaa ka qabsoontay xarunta shirarka daawad ee magaalada Kismaayo iyadoo xuskan maalintan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Kismaayo iyo saraakiil ka socotay ciidamada booliska Jubbaland ugu horeyn waxaa munaasabadan daahfuray agaasimaha xuquuqul insaanka iyo waliba wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Jubbaland Zainab Rashid Cige oo iyadoo arrimo badan ka hadashay dunko dhanka dhacda oo lagu tala galay in lagu dabargooyo gudniinka fircooniga ee gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo gaar ahaan Jubbaland qiimay inaynu aad uga taxadirno taas oo aan diinteena islaamkuna ina farin sidoo kale waxaa si isku mid ah ugu dhiidhiyeen dhibaatooyinka ay leedahay gudniinka fircooniga gudoomiyaha haweenka ee degmada Kismaayo Marwo Sureer iyo Colonel Ibrahim Saciid oo kamid ah saraakiisha ciidamada booliska Jubbaland ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland cidii arintaasi ku lug yeelata oo aan ogaano ama dacwadeedu ay la soo gaadho ama inay fulisay aan ogaano sharciga la tiigsanayna waxaan ognahay dhibaatada iyo tacadiga uu inoo geystay gabar uusan tacadi u geysan ama dhibaato uusan u geysan gudniinka fircoonigu ma jiro haddana waxaynu ka hadlaynaa in gabdhaheeni aynu dabar gooyno gudniinka fircooniga waa in gabdhaheena aynu ka dhiiri gelino inaan lagu gudin gudniinka fircooniga محمد حسين محمد agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa tilmaamay dhibaatada uu ku dhaafana wuxuu ku dhaafaa mid caafimaad ah wuxuu ku dhaafaa mid maskaxiyan ah wuxuu ku dhaafaa mid dareen ah dhammaan dhibaatooyinkani waxa looga hortagi karaa ayadoo la isla kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ay gacmaha isqabsanayaan ugu dambeyn ayaa waxa munaasabadan xuska maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland Qamar Deeq Xaaji Khalifa maanta waxaan halkan iskugu nimid arrin la xiriirto dacatiyada haweenka Soomaaliyeed ku dhaca oo ay ka mid yihiin jariimo weyn oo aan Ilaahay u raali ka ahayn oo ah dabargooyn iyo dhaawicid maskax ahaan iyo aqli ahaan aan gabdhaheena annaga ku dhibno Maxamed Ibrahim Karama Royal TV magaalada Kismaayo.